أهلا وسهلا صاحبي يعني halkan waxaan kusoo bandhigi doonaa maanta video yar oo ku saabsan qaabka aad u isticmaali lahayd website-ka wax sheeg ee fadhiisin doona insha Allah Webbook markaad addresskii soo qorto ee wax sheeg.wall.fm soo qorto halkan aad imanaysaa oo home-kii wax sheega imika dee qofka register garaysanaya qofka register garaysanaya labadaba waan u furnay hadhow talo waa la xidhi doonaa oo sida Facebook ilaa sign in aad tiraahdo ku tusmaayo home-ka homepage-ka marka laba option baad haystaa markaad shaashadan imika joogto inaad dad si register garaysnayd aad gasho oo username-kaaga iyo email-kii geliso sign in tiraahdo sidii Facebook-ka ama inaad sign up garayso join now oo ku biirto labada mid baad haysataa ama inaad su'aal markaan weydiiso oo halkan general chat ay ku qoran tahay click siiso oo halka wax ku qorto su'aashaada ma garanaysaa markaan kaaga jawaabo marka bal hadda waan sida loogu biiraan baranaynaa join now baan idhi imika igu dar baan idhi igu dar ayaan idhi join now markaan idhi shaashadii wuxuu ii soo saaray la isku register garanayo formka waxaa ugu horeysa username waxaad ku qoraysaa hal word oo wada socda hal kelmad oo wada socota yacni imika axmed xasan oo kale haddaad tahay axmed xasan waa inuu xidhiidhsanaada marka for example markaa waxaa lagu talagalay hal user hal word oo xidhiidhsan waa inaad ku qortaa tusaale ahaan axmed oo kale wuxuu yidhi marka halkan emailkaad gashanayso geli emailkaaga oo kuu soo diri doono axmed baan imika qortay emailkaygii baan geliyey waayahay emailkii baan gelinayaa hadda halkana passwordka wax sheeg ku yeelan doonta halkaa ku qoraysaa markaa passwordkii ayaa haddana mar labaad ku celinaysaa repeat your password si loo check garayo halkan waxaad ku qoran your real name magacaad rabto inuu kaaga soo baxo website-ka wax sheeg halkan waxaad ka dooran mail iyo female midkaa tahay ayaad halkaa markaa click siin halkan waxaad ka dooran bishii hadaad rabto inay kuu soo baxda hadii kalena waa iska dayin hadaad rabto inaad taariikhda dhalatay ku qoratana waa dooran markaa taariikhdii rabtana waa dooran markaa hadaad rabtana inayna kuu soo bixin taariikhdaaduna waad iska dayin boqorga maysid waad ka qaadi halkan waxaad ka dooran looking for waxaan raadinayaa male ama female muhiim maaha inaad doorato hadaad dooran kartaan here for waxaad halkan u joogtaa fun friendship dating whatever kaa doonto music waxaad ku qori waxaad xiisayso xasan aadan oo kale xasan aadan favorite bookskaaga aad ka hesho weli quraan oo kale halkan your photo haddaad rabto sawirka profilekaaga kaaga soo bixi doona wax sheeg browse baad odhan sawirkaagii baad soo gashan eesokayn baad odhan hadaad rabto inaad iska dayso sawir soo gashanna saasaad ku dayin halkan waxaad gelin waa security questionka halkaa ku qoran waa inaad halkan ku qortaa waxa halkaa ku qoran waxaa laga yaabaa inaad tahay human ama inaad tahay malicious software soo weerartay website-ka marka you must prove you are a human marka 8 p w t 3 g join baan nidhi markaa lagu dar weeye hadda markaa waa nagu darayaa markaa wuxuu yidhi markaa registration successful verification email successfully sent waxaa laynoo soo diray hadda email confirmation naga rabta ama confirm please confirm your email address buu kuli markaa si aan usoo confirm garayno oo inaan inagu emailkan iskaleena usoo caddayno waa inaan galnaa hotmailkeenii website-kii magaranaysa emailkaan geliyey hadduu google ahaa iyo hadduu hotmail ahaa midka uu ahaa waa inaan galaa kadibna halkaa kasoo confirm gareeya imika for example aniga emailkaan geliyey wuxuu ahaa hotmail buu ahaa waa inaan markaa hotmailkii galaa waa inaan galaa kadibna aan hotmailkii emailkay wax sheeg ii soo dirtay aan sii furaa kadibna halkaan kasoo galaa wax sheeg intaasuunbaa imika iga dhiman inaan wax sheeg isticmaalo intaanbaa imika iga hadhay hadda markaa waxaan galayaa hotmailkii baan galayaa hotmailkii markaan galay marka laba meelood meel buu iisoo dhigayaa ama inboxku iisoo dhigayaa ama wuxuu iisoo dhigayaa jankiga emailkii ay soo dirtay wax sheeg imika for example inboxkan kasoo eegayaa waa inboxka ay igu soo dirtay in kale inboxkii imika iguma jiro wax sheeg waan ka dhex waayay liiskan markaa waxaan ku dhufan jankigaasuu igu soo diraya jank waan ku dhuftay jank waan click siiyey jank markaan click siiyo waa in halkan iga soo baxdaa markaa hadhow wax sheeg haye jank baan sugayaa
jankii waan sugayaa imika way computerada qaarna wuxuu soo dhigayaa inboxka qaarna janka ku soo dhigay imika marka jankii ku dhuftay oo tan emailkii ka timiday wax sheeg email verification ahay wax sheeg baan click siiyay marka wax sheeg baan click siiyay waxa ii furmi doona marka emailkii ay soo dirtay wax sheeg waa kan emailkii wax sheeg bay ka timiday to Ahmed cigadada ku socota from wax sheeg oo emailkii uu ku soo qortay ka timiday kadibna waxaad ku dhufan click here aad click siisa click here waa inaad tiraahdaa kadibna okay tiraahdaa bas hadda wax sheeg buu dhexkeenaya hadda waxaan ahay registered user wax sheeg ka tirsan baan ahay marka inta markaan sameeyo hadda waa kan waxa ay soo baxaysa wax sheeg oo shaashadaydii wax sheeg baa imika soo baxaya hadda waan register gareysanahay hadda wax sheeg baa soo socda hadda waa kan soo baxay wax sheeg registered user baan imika waxaan doonaa samayn karaa waan like gareyn karaa comment baan bixin karaa post baan samayn karaa imika anaa wax soo gelin karaa imika haddaan rabo inaan post soo geliyo waa kan ama statuskayga aan update gareeyo halkan man click siin WhatsApp linka waxaan doonaan qoraya marka soo dhawaada waxaan ahay intaas aan rabaa inaan post ka dhigo oo soo geliyo marka haddaan magaranaysaa statuskayga ama qoraalkayga imika aan qorayo haddaan rabo inaan sawir raaciyo waxaan odhanayaa una touch photo aan click siin sawirkii aan rabay baan soo gelinay haddaan rabo inaan video raacinaya video baan click siinaya kadib markaan waxa iga dhamaysto halkii post laga odhanayay facebooka send baan odhanayaa kan okay send hadda halkan uu soo dhigayaa postiga post kaliya okay Ahmed soo dhawaada asxaabta waxaan ahay ninka cusub wax sheeg haddaan rabo markaa profile-kayga inaan tago waxaan click siinayaa xakan sare watan my profile wata kan waa home-kii kan waa my profile meeshan waxa la dhahaa xaruntayda oo adaa ka qaabaysanaya qaabka uu ekaanaya profile-kayga iyo wax sheeg basaad u isticmaalay dadka qaabaysanaysa waxaad oran kartaa magaranaysaa ciddaasi ay aragto ciddaasi inay arkin ciddaasi waxaan soo geliyaa aragto ciddaasi inay arkin saaxiibadayda mooyee ciddaasi inay la soo xidhin ciddaasi inay la soo arkin qofka iga xidh qofka iga jooji xaruntayda la yiraahdaa adaa iska maamuli doona halkan waxa weeye profile-kaaga waa in my profile haddaad tiraahdo my profile click siiso waxa ku soo bixi doona profile-kaaga sidii Facebook oo kale ahaa hadda bal markaa my profile baan ku dhufanayaa aan profile baan click siiyey waxay furmi doonaa imika markaa profile-kaygii ayaa ii furmi doona kan imika profile-kaygii my profile weeye wixii ugu horreeyay qorina waa kan halkan waxa iga soo bixi doona wixii ma garanaysaa information-kaygii halkan waxa iga soo bixi doona sawirkaygii halkan online aan ahay in kala laga arki doonaa marka haddaan rabo imika sawirka inaan iska bedelo mouse kuma dulgeyn change avatar baa la yidhaha halkan marka la joogo wax sheeg halkii laga odhanayay profile picture Facebook avatar baa la yidhaha halkan waxaad iga qoran kartaa qoraal yar oo markuu qof yimaado profile-kaaga soo eeganayo aad isku xayeysiinayso kala for example ya nacnac oo kale la meel aad for example aad isku xayeysiinaysaa imika for example inta aan ku qoranayaa qoraal yar aan text baad qori kartaa submit baan markaa qoraalkaas hadii marka profile-kaaga marka la yimaado sawirkaaga halkan laga arki halkan qoraalka gelisay baa laga arki doonaa meesha aad ku qortay marka kaas waxa weey marka my profile-kayga tagay haddaan rabo marka inaan home-kii ku soo noqdo home-kii baan click siin waxa ii soo bixi doona magaranaysaa wixii qof walba status updateskiisa uu sameeyay qof walba soo gelinay kan doono like gareyn kan doono comment baan ka bixin kan doono wax soo iska dhaafay waxaan doonaa sameyn waxyaalaha uu dheer yahay yaan hadana arkaynaa marka wax sheeg Facebook waxyaalo badan buu dheer yahay imika waxaan waa friends-ka users-ka ku jira qofkan doonaan ku darsanaya imika for example oo kale imika gabadhan raasamaal la yiraahdo kale in click siiyay
gabadhaasaan rabaa markaa inaan friendskayga ku darsado oon friendskayga ku darsado ayaan rabaa iyadii baan click siiyey sidii Facebook iyo furmayaa wallkaygii kadibna haddaan rabo inaan magaranaysaa friendskayga ku darsado add friend baan odhanayaa haddaan rabo inaan hadiyad u diro gift baan u diri karaa send gift halkaad qofka uga diri lahayd qoraal ama wax kale ayaa waxaa u diri kartaa send gift hadiyad baad u diri kartaa ubaax magaranaysaa fargal waxaa loo doonto marka haddaan rabo inaan friendskayga ku darsado qofkii aan iminka dunimidee raasamaal gabadhaa la idhaa add friend baan idhi iminka markaa add friend micnaheedu tahay igu dar saaxiibaday hadhow markaa waxaa laiga sugayaa in iyadu confirm garayso marka friend request oo sent waa loo diray buu yidhi marka waxaa laga sugayaa in iyadu soo confirm garayso markaasaan noqon doonaa friends haddaan rabo inaan private message u dirana send private message baan odhanayaa fariin iyadoo ku socota weeye oo sidii Facebook oo kale send gift waa hadiyad u dir flowna waa magaranaysaa waxay soo qorto iyo wax walba oo la arko wey oo la socda wey marka haddaad rabto chatka inaad isticmaasho dhowr chat oo kala duwan buu leeyahay magaranaysaa wax sheeg chatkaasi waxa weeye chat guud oo macal maqal leh oo macal muuqaal leh oo magaranaysaa website-ka u gaara kana waxa weeye chat hoose oo magaranaysaa ku tusaya dadka meesha ku jira oo intay kala yihiin imika ku dhufto imika 7 people baa ku jira 7 baan click siiyey halkan waxaa ka arkaysaa markaa dadkii meesha ku jiray yaad halkan ka arkaysaa haddaad rabto markaa adigu in magacaagii laga dhex arka meesha iminka anigu waxaan kusoo galay iminka intaanan magacaygii qorin gast cave ahaan baan ugu jiraa magacayga waxaa la dhahdaa gast cave haddaan rabo laakiin inaan magacaygii geliyo waxaan odhanayaa sign in markaan ku dhufto ayaa waxaa isoo baxaya boxkan oo micnihiisu yahay sign in gray marka sideen u sign in garaynaya halkan waxaa iga soo bixi doonaa Facebook ama gast haddaan rabo inaan magacaygii Facebook aan ku isticmaalayay halkanna ku isticmaaliyo sawirkaygii Facebook aan click siinaya login with Facebook haddaan rabo inaan magaca imika aanu iskaga qorto aan ku samaysto magacayga halkan laga arkana sign in as a guest baan odhanayaa magaca aan ku isticmaalayo chatka baan qoranayaa magaca aan ku isticmaalayo chatka baan qoranayaa set your name okay hadda magacaygu wuxuu noqday Axmed Cabdi uu noqday okay haddaan rabo qof meeshan ku jira inaan la hadlo oon salaamo muusku maan dulgeynaya kadibna boxkan ay soo baxaya chat baan odhanayaa la sheekayso halkan qofkii soo baxay magaciisa halkan iga soo baxaya qofkii soo baxay magaciisa halkan iga soo baxaya kana click siinaya la hadlaya markaa waan salaamaya marka kaniimka waxa weeye private chat haddaan public chat rabana jalan chatka markaan iska galaya oo dadku iska wadanaya sheekadooda haddaan rabo inaan anigu chat sameeyana oo shaashada ilaa gooniya sameeyo oo magacaan doonaan u bixiyo sida akhyaarta boram oo kale halkan maan click siin magacun baan u bixin chatkan sameeyay akhyaarta boram aan baan odhan yes star chat baan odhan marka waxa ay sameeyaan chat sidii Facebook oo kala magaciisa la yiraahdo akhyaarta boram dadkii halkan joogay uma ku soo darsan qof alla qofkan doono kadibna halkan ay akhyaarta boram ku sheegaysan kii private chat kan kula hadlayna waa halkan jooga isna saas private chat kaygu soconaya taas ka xidhayna close uma odhan kala close uma odhan markaas waxa weeye markaad chat ka hoose isticmaalayso dad chat ka sare isticmaalaysana click u baadsiin isna sidii oo kale oo si lamid ah oo isticmaalaysa marka balan ma home kii hadaan ku noqono aan aragno home kii waxyaalo badan baad home kana ka samayn kartaa sida waxyaalaha uu dheer yahay waxa kamid ah Facebook inaad samayn karto blog baad ka samaysan kartaa website dig gooniya yaad ka dhex samaysan kartaa Facebook waxyaalaha oo dhan waad isticmaali kartaa groups baad samaysan kartaa sidii Facebook create new group badan videos markaad soo gelinayso add new video badan events dad samaynayso add new events badan blogs dad samaynayso marka blog adiga ku gooniya wax walba ku qorto oo halka laga akhristo blogs ka baad samaysan haddaad rabto markaa inaad samayso discussion dadkoo dhan ka doodaan start new discussion badan su'aal baad qori ummadoo dhan baad arki maalintaas markaas laga doodi doonaa markaa ama buug baad qori oo taa ka soo doodo ama wax baad qori oo seed u aragtana hawsha dadkoo dhan baa ka soo dooday markaa discussion bay noqonaysaa dadkoo dhan u dhaxeeya marka waxa kala naadaa iska baran doonaa markaad ka baxaysa wax sheegna sign out baad ku dhufanaysaa marka intaasi waxaan filayaa inay
kaga filan tahay saad u isticmaali lahayd website-ka wax sheeg marka waxaan filayaa dhammaantiin inaad nagala soo qayb gali doontaan haddii alla yidhaahdo mahadsanidin dhammaantiin thank you very much aad baad mahadsantiin